alxamdulilah wabacd waa walaalkiin waano oo idiin wada waano waxaan rabaa inaan wax ka xuso saaxiibka wanaagsan ee ku wanaagsan xagga cibaadada alla ka cabsiga ku dhaqma diinta oo ay korkiisa ka muuqato tukada salaadaha faralka oo sooma haddaba aan wax yar ka tilmaamo qiimaha uu leeyahay saaxiibka wanaagsan hadduu ku waayo wuu ku soo doonayaa haddii aad cibaadada ka gasho qaflana ama aad ilowdo wuu ku baraarujinayaa oo wuu ku soo xasuusinayaa hadduu ducaysanayna ducada kaa ilaawi maaye wuu kuu ducaynayaa waa sida xidigii oo kale haddii ay doontaadu ay ku dhunto badweynta dhexdeeda wakhti mugdiya wuxuu kuu noqonayaa hagi barrina wuxuu kugu sugayaa carshiga hoostiisa miyay kugu filnayn inuu dar ilaahay kuu jecel yahay saaxiibka wanaagsan markuu keligii jannada galo ayuu ilaahay weydiinayaa wuxuu leeyahay ilaahayow away saaxiibkaygii ma hayo jannada dhexdeeda kuma arko wuxuu ahaa adduunyada mid aan wada tukanno mid aan wada soomno wanaagana isfarno markaasuu ilaahay ku leeyahay saaxiibkaagii wuxuu ku jiraa naarta subxaan allah markaasuu saaxiibkii wanaagsana dhahaya ilaahayow farxaddaydu iima dhammaystirmayso inta aan jannada ku jiro ilaa aan ka helo saaxiibkaygii wanaagsanaa markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa faraya oo uu leeyahay ordoo dhaqaaqa oo naarta taga hebelna ha laga soo bixiyo ehlunaarkii ayaa qaylinaya waxay leeyihiin muxuu mutaystay camal noocee ayuu shaqaystay maxaa jannada looga saarayaa ma waxaa ambiyada miyaa u shafeeco qaaday markaasaa waxay malaa'igtu dhahayaan maya ee waxaa u shafeeco qaaday saaxiibkiisii oo jannada ku jira allahu akbar balqiyaas isagoo saaxiibkaagii wanaagsanaa ee aad lahayd wuu ku shafeeco qaado xasanulbasri allah ka rala noqday wuxuu yidhi badsada saaxiibada wanaagsan ee mu'miniinta maalinta qiyaame way idiin shafeeco qaadayaane cumar alfaaruuq amiiruulmu'miniinna wuxuu yidhi lama siin aadamaha nimco ka weyn iimaanka ama islaamnimada lama siinin kana khayr badan saaxiibka wanaagsan ee hadduu midkiin helo saaxiib wanaagsan midkiin hadduu saaxiib wanaagsan helo yuuna sii daynin allahu akbar cajiib wuxuu yidhi imaamu shaafici allaha ka rala noqdee haddaad helayso saaxiib wanaagsan oo kugu kaalmeeya adeecidda ilaahay subxaanahu wa tacaala si fiican ugu dheg saaxiibkaasoo kale inaad hesho way adag tahay inaad ka faaruqdana way sahlan tahay xasanulbasri allaha ka rala noqdee wuxuu yidhi walaalaheen yacnii saaxiibadeenna wanaagsan waxaanu ka jecelnahay ehelkeenna iyo awlaaddeenna waxaa sababay ehelkeennu waxayna soo xasuusinayaan adduunyo ama na farayaan ama nagu baraarujinayaan halka saaxiibada wanaagsan ayna soo xasuusinayaan daarta aakhiro saaxiibka wanaagsani ma ahan wax la wada helo haddaad helayso saaxiib wanaagsan oo ku xasuusinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsigiisa iyo daarta aakhiro si fiican ugu dheg oo xajiso wallaahi ma ahan wax horay loo helo luqmaan alxakiim oo wiilkiisa u dardaarmaya ayaa wuxuu ku yidhi wiilkaygow ha noqdo shayga ugu horreeya aad kasbanayso iimaan kadib saaxiib wanaagsan waxaa sababay saaxiibka wanaagsani waa sida geedkii oo kale haddii aad hoos fadhiisato waxaad ka helaysaa hadh wanaagsan ama hoos wanaagsan haddii aad wax ka qaadatana waxaad ka helaysaa qudaar aad intifaacsato ama midho marnaba ma lahan saaxiibka wanaagsan cillado maqaamkiisa waa la sara yeelay inuu garabkaaga ahaadana waa nimco dadku aysan wada helin hanuunkaaga sabab ayuu u noqonayaa la joogidiisu waa daqiiqado aad u qiimo badan oo aad ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xidhan tahay saaxiibka wanaagsani ha noqdo sahaydaada raadi oo baro la saaxiib wehesho garabkiisa noqo si uu maalinta qiyaamaynta kuu soo xasuusto oo kugu shafeeco qaado maalin maalmaha ka mida ayaa waxaa aad u xanuustay imaamu axmed binu xambal kadibna waxaa soo booqday saaxiibkiis imaamu shaafici dhammaantood allaha u wada naxariistee markuu imaamu shaafici arkay xanuunka saaxiibkii oo aad iyo aad u daran waxaa haleeshay imaamu axmed binu xambal murugo kadibna wuu xanuustay isagoo la murugaysan xanuunka saaxiibkii axmed binu xambal waxaa ogaaday imaamu axmed binu xambal inuu saaxiibkii imaamu shaafici xanuunsanayo kadibna wuu soo tukubay oo wuu soo booqday markuu arkay imaamu shaafici inuu soo booqday saaxiibkiis imaamu axmed binu xambal ayuu wuxuu yidhi imaamu shaafici saaxiibkay wuu xanuustay waan soo booqday waan xanuustay anigoo la murugaysan xanuunkiisa saaxiibkay axmed waa la soo caafiyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala baa caafiyey kadibna wuu isoo booqday
aniguna waan caafimaaday caafimaadkaygana waxaa sabab u ah booqashada uu isoo booqday saaxiibkay Axmed bin Hanbal Allahu akbar bal qiyaas qiimaha iyo naxariista iyo galgacalka dhex yaala labada saaxiib wuxuu yiri Allah subhanahu wa ta'ala wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ابن قيم wuxuu yiri markuu micneynaya aayadan quraanka Allah wuu diiday in ay jannada dadku u galaan kali yaani shakhsi waxayna u gali doonaan jannada saaxiibo kasta iyagoo wada siman wallahi saaxiibka wanaagsan xitaa wuxuu saameeyaa xawayaanka noociisa liita ee nijaasta bal xasuuso tiradii asxaabul kahfi iyo eegii la jirkooda ahaa wanaagooda ayuu la qaybsaday markaasuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala si wada jira quraanka ugu wada xusay halka saaxiibka xuni uu ku dulaynayo uu jiidayo albaabada jahiima kana fogeynaya adeecida Ilaahay subhanahu wa ta'ala qiimahaagana uu weeqayo saaxiibka xun waxa tusaale looga dhigay sida agjoogida birtume midkaasoo hulaaqaya ama ku dhex jira dabka iyo qiiqa haddaad la joogto waxa ka soo raacaya urqarmuun dharkuna way ka gubanayaan saaxiibku kugu suntan yahay sida rasuulka sallallahu alayhi wa sallam uu sheegay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri qofku wuxuu haystaa diinta saaxiibkiisa ee qofkiin ha iska eego iduu saaxiibka ka dhiganayo ajiib wallahi waxa dareemaysaa saaxiibadu inay markasta kala dab qaadanayaan way kala dab qaadanayaan oo isku xiran yihiin iska fiiri saaxiibka kula jooga iska fiiri midka aad kaga taxan tahay warbaahinta ciwaanada warbaahinta kala duwan sida WhatsApp statuska Facebook page-ka iyo story-ga amaba Instagram-ka TikTok-ga ee aad follow garaysay wallahi saaxiibka xun wuxuu kugu reebayaa raad xun oo kugu suntan yahay diid ama yeel alla badana kuwa wanaagsana oo ay saaxiibo xun gacanta ku dhigeen kadibna haleeyeen oo ay ka duubsadeen WhatsApp statuska Facebook-ga Instagram-ka TikTok-ga YouTube-ka intay si sahlan batanka falowga ku taabteen hooyo iyo aabo badanba ciyaalkooda hadiyada ugu keenaya oo u dhiibaya taleefano markay quraan ka dhameeyaan kadibna ku biiraya warbaahinta oo halaabaya noocyada kala duwan ee warbaahinta waa meel loo soo suuq geeyo afkaar xun waa meel loo soo suuq geeyo afkaar lagu duminayo oo lagu burburinayo diinta iyo akhlaaqiyadkeeda waa meel loo soo iibgeeyo cilmaaniyada waa meel loo soo iibgeeyo ilhaadnimada qofku inuu noqdo alladiid aan ilaahay subhanahu wa ta'ala aan rumaysnayn oo bari kamaal ku doodaya ilaahayba ma jiro wallahi Soomaali badan baa jirta oo maanta warbaahinta Facebook iyo YouTube-ka intay ku halaabeen ilaahay subhanahu wa ta'ala beeniyay oo yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala ma jiro iska fiiri saaxiibkaaga aad warbaahinta kaga taxan tahay fursad baad haysataa wallahi fursad baad haysataa masax oo tirtir xitaa haduu ku yahay gacal iyo walaalaha aad statuska WhatsApp kaga taxan tahay ee aad fiirinayso ee heesaha iyo muusiqa iyo fuxshiga iyo fawaaxishta faafinaya ay ka qayb qaadanaya ee buunbuuninaya iska masax tirtir wax faa'iido ay kugu jirta malahan wallahi inaysan faa'iido kugu jirin adaa ku halaabaya waa tagaysaa waxaad arkaysaa waxyaalo badan oo maanta aad diidanayd oo bari agtaada ka fudud nabaday hadda dhaqaaqdo ma soo noqonaysid hadduu codkayga ku soo gaadhay wallahi nasiib baad leedahay saaxiibka kale uu ku suntan yahay oo saaxiibadu way kala dab qaataane saaxiibkaaga iska fiiri hadduu xun yahay jar oo gooy si uuran ku saamaynin hadduu wanaagsan yahayna waa nimca ilaahay subhanahu wa ta'ala uu bixiye soo dhaweyso oo gacal ka dhigo si uu maalinta qiyaamada ugu shafeeco qaado markaan ku leeyahay saaxiib kama hadlayo midka aad waxbarashada iyo ganacsiga nolosha adduunyada aad ku saaxiibteen waxaan ka hadlayaa saaxiibka wanaagsan ee ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xiran ee markaad aragto aad soo xasuusto daarta aakhiro kaas ee sheegaya waxaan u baahanahay codkan haddii aad dhageysatay oo aad dhamaysatay laba arrimood baan ka codsanayaa arinta koowaad waa inaad ilaahay subhanahu wa ta'ala dambi dhaaf weydiisaa arinta labaad waxaan ka codsanayaa inaad codkan walaalaha kale muslimiinta aad gaarsiiso ilaahay rabbi oo raxmaanow
cid alala cid kastoo codkaan faafisa ilaahay uu dembigooda dhaaf uu dembiga waalidkooda dhaaf maalinta qiyaamo waxaad ka dhigtaa kuwa carshiga ilaahay subxaanahu wa tacaala hoostiisa harsan doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.